hooyo Soomaaliyeed baa mar soo weydiisay beerka carruurta yar la siini in uu hadalka ku reebi ama carabkooda uu cuslaani ama hadalka uu ka daahi. Marka Soomaali badan way aaminsan yihiin in carruurta yar aan beerka la siinin, marka arrintaas khalad waay. Cunugii 6 bilood hadduu gaara uu dhamaystay 6 bilood waa la siin karaa beerka iyo cunooyin kale oo kala duwan. Marka arrintaas fikrad khalad ah oo Soomaalida ay aaminsan tahay waay. Hadda ka hor tijaabo waan ku hagaajiyay oo carruur badan baan siiyay beerka. waxayna noqdeen nasiib wanaag ilmaha ama carruurta uga hadalka badan. Marka arrintaas khalad waay, wax ka jira ma lahan. Khaasatan carruurta yaryar iyo haweenka uurka leh aad bay ugu baahan yihiin in la siiyo beerko. Beerka waxaa ku jira him iron wax loo garan ama macdanta ironka oo dhiigga laga hagaajiyo baa laga helaa. Khaasatan haddii haweenka culus dhiigooda uu yar yahay, si dhaqso ah buu ku soo celiyaa dhiigga buqur ugu soo qaadaa. marka arrintaas wax ka jira ma lahan, khalad waay. Carruurtana hala siiyo beerko insha Allah. laakiin waxaa shardi ah in shaah iyo caano aan la cabin maxaan ku dhahaa beerka, sababtoo ah ironka beerka ku jiro markaas wax tayo u yeelanay ma lahan. jirkana si la rabi dhiig uguma hagaajin karo. marka taas iyadana muhiim waaye. waa mahadsantihiin.